weligaa ma maqashay nolol aad dibadda aad u bixi karto dhowr daqiiqo oo keliya markiiba si aad uga fogaato dhaxanta iyo qarqaryada. Yakuuski waa meesha heerkulka ugu qabow adduunka ee ebed la diiwaan geliyey marka laga soo tago qaaradda barafka uu fadhiyo ee Antarctic, waxayna dhacdaa magaaladan Jamhuuriyadda Saaqa ee Siberia ee dalka Ruushka. waana gobol si iskiis ah isku maamulo oo ka go'doonsan adduunka intiisa kale. dadka ku nool magaaladan waxaa lagu qiyaasaa ilaa iyo 300 oo kun oo qofood in ku dhow. heerka qabowga magaaladan waxa uu gaaraa -71 digrii Fahrenheit. tusaale, qabowga magaaladan waxa uu gaarayaa haddii aad kor u seeriso biyo 100 digrii Celsius kuleel ah in ay ku barafoobayaan sikimo yar gudahooda adigoo arkaya. waxaana la ogyahay qiyaasta biyaha ay ku uumi bixi karaan ay tahay 100 digrii Fahrenheit. bal marka waxaad qiyaastaa heerka qabowga daran ee ka jira magaaladan. laakiin dadka Yakuuza ayaa ah qabiiro ku xeel dheer sidii ay ku badbaadi lahaayeen jiilaalka adag marka uu heerkulku hoos u dhaco 70 digrii Celsius. waxa ayna qaataan dhar culus oo dhogorta xoolaha ka samaysan. jawiga halkan ka jira runtii waa mid qariib ah marka loo eego magaalooyinka kale ee caalamka. sida tusaale, haddii aad maro biyo leh aad soo matuujiso kadibna aad warto, daqiiqado yar kadib waxaad ugu imaanaysaa maradaadii oo angegtay sidii baakadii oo kale. xitaa waxaa macquul ah in aad xabadda muuska ah aad u isticmaasho in aad wax ku kawsato sida buriska oo kale. heerka qabowga ka jira meeshan daraaddeed waxaadba moodaysaa in aad ku sugan tahay meel ka baxsan meeraha dhulkan. dadku halkan ma xiran karaan muraayadaha ama okiyaalayaasha birta ah, sababtoo ah birta ayaa ku dhegi karta maqaarka jirka. haddii ay rabaan in ay bixiyaanna hilibkooda ayaa laga yaabaa inuu soo ruqo. sidoo kale, haddii aad gaari aad ku leedahay halkan, dhibaato weyn ayaa kusoo wajihi doonta xilliga jiilaalka barafka daran oo ah 7 bilood oo isxigxigta oo uu qabowgu uu gaaro -70 digrii Fahrenheit. islamarkaana ma wadi kartid gaarigaaga. haddii aad ku adkaysatana in aad kaxayso ma damin kartid matoorka gaarigaaga, sababtoo ah haddii uu daqiiqado uu kaa dansanaado waa mid gebi ahaantiisaba barafoobi doona. marka dadku gawaaridu waxa ay kaga tagaan bannaanka, waxaad arkaysaa boqolaal gawaari ah oo waddooyinka yaala oo barafku uu qariyey. sababtuna waa mashiinka gaariga aan xamili karin qabowga dhacaya daraaddeed. matoorkuna ma shaqaynayo haddii uu batariga uu kaa dhaco, waxaana sidoo kale kaa fadhiisanaysa olayada matoorka. xitaa wax kale iska daayay, qaaca gawaarida waa kuwo islamarkiiba baraf isku beddela magaaladan. balse dadku mararka qaar waxa ay awoodaan in ay gawaaridoodu ay ku xareeyaan garaasho diirimaad kulul leh, laakiin waa dhif oo sidaa uma badna. balse nasiib wanaag waxaa jira hal shay oo aad u caawiya dadka magaalada Yakuuzi, waana tamarta gaaska dabiiciga ah iyo saliidda uu Ruushku qaniga ku yahay. tan kale, magaalada qaabka loo dhiso dhismooyinkeeda waa mid ka gedisan qaabka magaalooyinka kale. dhismooyinka magaalada Yakuuzi waa kuwo kor uga qaadan dhulka oo waxay ku taagan yihiin tiirar culculus oo loo sameeyey. sidoo kale, xitaa dhuumaha iyo tubooyinka gaaska qaada ma aha kuwo dhulka hoostiisa ku jira, ee waa kuwo xoogaa kor uga qaadan dhulka si aysan u barafoobin. waxa kale ee yaabka leh ee aad ku arkaysa magaaladan waa dhismooyinka dabaqyada oo ay ka soo laalaadaan dariishadaha baco xirxiran oo cuntooyin ah, ay ugu talagaleen inay si friis ahana ay ugu barafeeyaan jawiga qabow ee bannaanka. sababtoo ah dadka magaalada Yakuuzi ma aha kuwo isticmaala wax fariij ah, waayo heerka qabowga bannaanka ka jira ayaa ah ugu yaraan -58 digrii Fahrenheit, halka fariijka caadiga ah oo wax uu ku barafeeyo marka uu qabowgiisu uu gaaro -20 digrii Fahrenheit. sidoo kale, 1 daqiiqo oo keliya haddii aad galoofiska gacmahaaga aad ka saarto, waxaad farahaaga ka dareemi doontaa xanuun zaa'id ah. haddii aad tijaabiso sidoo kale inaad 15 daqiiqo bannaanka aad joogto, waxaad la kulmi doontaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin maqaarka oo aad dareemayso inuu ku gubanayo oo kale, iyo in aad dareento neefsashada oo kugu adkaato, taasoona keeni karta dhimasho degdeg ah. mideeda kale, waxaa halkan suurtagal ah in la helo dad dhintay 100 sano ama 200 oo sano ka hor aan weli isbedelin, taasoo ay adag tahay in adduunka intiisa kale ay ka dhacdo. sidoo kale, dadka magaalada Yakuuzi ma aha dad beer iyo wax lamida tabcada, balse waa dad ku fiican dhanka iyo kalluumaysiga. inta badan cuntada dhaqanka iyo soo jireenka ah waa kalluunka oo aad ku arkayso suuqyada isagoo lagu iibinayo bannaanka. waxayna sidoo kale isticmaalaan hilibka fardaha, shimbiraha, lo'da iyo bakaylaha. dadka ugu badan magaalada waa dad asal ahaan ka soo jeeda Turkida,
boqolkiiba 38na waa dadka Raashiyaanka ah. Sidoo kale halkan Yakuzi waxaa laga heli karaa eeyaha noocan oo kale ah. Nasiib darase bisadaha halkan kuma noolaan karaan. Tan kale gawaarida ayaa waxa ay u samaysan yihiin aad arkaysaa in ay leeyihiin laba lakab oo muraayado isku samaysan ah. Sidaa daraadeed marka uu qaboojiyuhu kululeeyo gudaha gaariga ma luminayo heerkulkiisa. balse waxa ugu cabsida badan ayaa ah in dadku marka ay wadada ku sii jiraan gawaaridoodu ay ku xumaadaan, taasooyna ay halis ugu jiraan inay dhintaan haddii ay ku hagaajin waayaan 30 daqiiqo gudahood. dhanka kale waxaad arkaysaa magaalada gudaheeda in saacad kadib laga jabiyo barafka wadada hareeraheeda si uusan barafku u xirin wadooyinka. sidoo kale dadku waxa ay dhigaan roogag albaab kasta oo laga soo galo dhismaha si ay uga fogaadaan inay ka dhacaan dabaqa ama ay ka sabiqdaan. inta badan haddii uu qofku rabo inuu u socdaalo meel fog, waxa uu ku qasban yahay in markii uu 5 daqiiqo u socdoba inuu raadsado meel uu ka galo qabowga banaanka si uu u diirimadsado. waxayna dadku badanaa ay galaan markaas bangiyada iyo dukaamada waaweyn ama supermarketyada iyagoo soconaya siina wataan socodkooda. guryaha magaalada qolalkooda waxaa iyaguna ku jira kuleelyo koronto ah oo qol kasta dhexmara, iyagoona dadku diirimaad ay ka helaan. sanad walba waxaa magaalada Yakuzi yimaada dad ajaanib kala duwan oo ganacsato ah. ganacsiga magaaladan waxa uu ku tiirsan yahay gaaska dabiiciga ah iyo macdanta diamond-ka. su'aasha ugu badan ee la isweydiin kara ayaa ah sida ay tahay Yakuzi inta la joogo xagaaga. celceliska heerkulka maalinlaha ah ee bisha Juun, July iyo Agoosto ayaa noqda sidan. bisha Juun waxa uu gaaraa jawiga 16 digrii Fahrenheit. July waxa uu gaaraa 19 digrii Fahrenheit iyo Agoosto oo iyadoo celcelis ahaan uu jawigeedu uu gaaro 15 digrii Fahrenheit. sidoo kale iftiinka maalintii waxa uu hoos ugu dhacayaa 5 saacadood xilliga qaboobaha, halka qoraxdu aysan dhicin bilaha xagaaga 20 saacadood.